السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته and guys aad baan idin salaamaya meel kastoo joogtaan daafaca caalamka halka iga daawanaysaan waa channelkayga Umal Khair official waxaan jecelahay please inaad i gaarsiisaan 100,000 oo subscribes ugu dhaqsiyaha badan leh because waxaad tihiin walaalahay baa tihiin dad aan aad u jecelahay baa tihiin dad aan riwaayado badan soo jilay baa tihiin aad uga qosliyay baa tihiin intii magacayga muuqayga garanaysa waxaan idin ka codsanayaa si naxariis leh inaad channelkayga soo booqataan oo subscribe ii dhahdaan oo like ii dhahdaan oo share ii dhahdaan intaba insha Allah ta'ala inta hadaynu maanta ka nimaadno waxaan maanta halkan u soo fadhiistay inaan ka hadlo program habla Soomaaliyeed oo social media aad isaga xigto aad isaga dagaala hablahaas oo mid ahayno laba ahayno saddex ahayno afar ahayno dhowr ah oo wallahi billahi toonay gaariya dumarkaas waxay u badan yihiin adigu qaar la qabo iyo qaar aan la qabin intaba way isugu jiraan laakiin malaha waxaan u maleynayaa inta la qabaa way yar tahay waa wada single mother meeran baan u maleynayaa already yaan ku tarax tagin ama noloshooda khaaska ayaan waxba ku mashquulin haddaan ku socdo topic aan maanta hablahaasaan halkan ugu soo fadhiistay horta waa hablo Soomaaliyeed waa midda koowaad waa hablo muslim ah oo diinta islaamka haysta waa midda labaad labadaasana wadaajisa muslimna islanahay waxa islanahay maxaa la jiray Soomaali labadaasana wadaajisa hablahaas waxa weeyaan hablo magacyadooda la kala dhaho xanti galgacal waa gabar kale iyadana la dhaho Naciima Brank iyo waxna asan Naciima Brank baa la dhahaa gabar kale waxa la dhahaa Muno oo waa aktarad gabar kale waxa la dhahaa iyadana waxa la dhahaa adu waa group way badan yihiin waa dhowr iyo 10 bay gaariya xataa maamo kale waxa ku jirta iyadana khadra la yiraahdo oo maxaa la jiray tiri hooyaan hayo carruur baan haystaa haddaan dumarkaas ka hadlo afaarahooda ama waxyaalaha ay ku caytamayaan waa waxyaalo diinta meel waxad gudub uga dhacaysa waa waxyaalaha bilaadanimada u fiicnayn waa waxyaalaha Soomaalinimada u fiicnayn horta social media hana waxaan u maleynayaa dadku sida ay u isticmaalayaan ajaanibta kale iyo Soomaalidu sida ay u isticmaalayaan horta waa kaafi kala dheeriba because inagu waxaynu isticmaalanaa sidee qeyr waali ah inagii baa isku caayayna inagii baa isku xagxaganayna inagii baa isku fadeexadeynayna inagii baa waxaan kugu uri wuxuu noqday meel la iska ataago la isku soo maru noqday social media han iyo mad waxayna loo sameeyay aaladahan casriga ah dumarkaas run ahaantii waxay ka hadlayaan waxyaalo diinta aan munaasib ku ahayn oo dhaqanka munaasib ku ahayn oo waxaan kugu uri tul la qabiyo tu aan la qabin midna aanu fiicnayn bay wallahi oo bilaa kala ka hadlayaan inaad ila aragteen mar malayniyo Soomaali cid aan arkin ma jirto cid aan daawan ma jirto naagasta cajiladeedii clipkeeda waa la daawaday saasay tahayna waa la isbalansanayaa dumarkaas waxa ku xiran naag walba waxay wadataa group bay wadataa ama naag walba waxa ku xiran dad baa ku xiran oo FIFA heblaayo kale adigaan kula soconaa FIFA da ku haya waxaan leeyahay walaalayaal dadkiina dadka wax ay tamaya ee waxa la og yahay isku leh sacabka u tumaya ku sii bood gareynaya walaal horta dadkan waa dad Soomaaliyeed waa dad inaan la dhashay waa dumar qurba jooga waa dumar maxaa la jiray u tagay qurbaha inay ka soo danaystaan ay danahooda iyo magaranaysa hawlahooda gaarka ka soo qabsadaan inaad isku xagxagataan oo isku caydaan oo magaranaysa waxyaalo dhaqanka iyo diinta iyo bilaadanimada meel walba tooganaya aad ku wada hadashaan horta waa laga qurux badan yahay ma fahanteen anigu horta hay arkina yacnaha midna kama aqaani dumarka wallahi billahi taala been sheegay inaan midna ka garanaynin because waxay soo kicisay in waa Soomaalinimo iyo Islaamnimo baa soo kiciyay inta YouTuber aan arkay aliyanaha dumarka caydood iyo waxay isweydaarsanayaan hal YouTube oo soo qaadanaya ama dad ku mashquulaya arkimaysid qof wali wuxuu leeyahay ma kuwiba bismillaahir rahmaanir rahiim wana dhaafiya naaga waa waasheen qaarna sacabka idin tumayaan waxay leeyihiin FIFA xanta soo gashay xamda waxaan ka helaa karbaashkeeda muna karbaashkeeda aan ka helaa waxaan ka helaa khadra karbaashkeeda waxaan ka helaa Naciima karbaashkeeda waxaas idima fiicna caawa haddaad dhimataan adduunyo aakhir way kala badan yihiin caawa haddaad dhimataan oo tiini noqotaan naagna qabriga ku raaci masanina qabriga ku raaci maayo adiga iyo waxaan kugu uri camalkaaga unba qabriga galaya gabar kasta oo cayibtamaysa oo magaranaysa ay waxay doonto sheegisana laba malag baa labadeeda garbood kala saarna waxa la waxay tiraahdo ka furay waxaad leeyahay walaalayaal idinkoo Ilaahay ka cabsanayo oo islaamnimadiina eegay oo akhlaaqdiina dumarnimadiina eegay oo awlaadiina iyo dhulka aad joogtaan eegayo bal dhinacuun horta qof bilaadanka inuu xun xishmeeyo horta qurux badan moogtay hadaa dhinac walba wuxuu xeerin weeyo waa dhibaateynteeda leeg qofka bilaadanka ama Ilaahay buu ka xishoodaa ama aadamihiisu ka xishoodaa wana ftato wax ka dhaxeeya ma jiro laakiin qofka haduu labada sunniyood xirto oo yiraahdo waxaan ka xishoonayaa ma jirto wixii wala iga soo baxay qabo wax baan ku dhaafiyaa horta waa waali weeyaa dumarkaasi aliyanaha heer waxa la gaaray awlaad iyo hooyo حتى والد iyo waxa ku jira caayaha qaarkood waxa ku jira waalid la caayayo iyo waxa ku jira awlaad yar yar oo waxay geysteen ma jirno sabiya oo la caayaya ku jira
walaalayaal horta hala is ixtiraamo gabadha la leeyahay xamdi kalgacal horta wax la yiraahdo midgaan iyo wax la yiraahdo nasab dhimad horta ma jiro laba kitaab oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala intuu soo dejiyay uu yiri kana waa midgaan kana waa ajina horta ma jiro oo damaynaan arag kitaabkeena ilaahay hal kitaab ilaahay inoo keenay subxaanahu wa ta'ala halka kitaabna meel ay dadku kaga qoran yihiin inna waa ajina waa midgo horta ma jiraan ma fahanti haddaad tiraahdo fartii walaala taagaba waan jawaabaya waan taagaya horta waa dhibaateynteeda leeg qabiil waxba ma tarayo oo cay waxba ma tarayso oo nin laangaaba iyo nin laandheera ah midna maanta qofku sumcada laandheer adduunka intaad ku nooshahay waxa laandheerata inta sumcada sharaf leedahay waa adduunka marka intaad ku nooshahay aakhirana camalkaagi adduunyo qofka jannada lagu arko ee inta nabiga kaleey salaatu wasalaam uu camal falay ee waxaan kugu wari uu shafaac qaaday jannatul firdaws lagu casuumo intaas horta laandheera maanta yawmal qiyaamaha ilaahay hortiisa la taagayahay ifka inta lagu nool yahayna inta qofka iimaanka leh ee akhlaaqda leh ee ilaahay sabartay ku xiran ee uu sujuudaya ee waxaan kugu xumaha iyo samaha kala garanaya ee wuxuu yahay iyo noloshiisa si fiican u garanaya horta qofkaas laandheeraha lagu sheegay waa ka laandheera kale ma jiro hadii maanta lagu soo istaago halkaas lagu leeyahay soo bax laandheera tahay laangaab ba tahay horta waxay ka dhibaysaa ma jirto qofka bilaadanka inuu noloshiisa iyo naftiisa uu kalsooni ku qaba horta aad muhiim u ah naag kasta oo caytamaysa oo hadlaysa gabadhan maxaad ku caayaysaa meesha taal maxaa idin ka dhaxeeya dumarka qaar kood isku meel ma joogaan qaar baa ingiriiska jooga qaar baa jooga Jarmalka meelahaas mid baa Faransiiska joogta midba meel bay joogtaa bal haddaba isku wada ma tiidano dabeerihiin oo meel kama wada cabaane maxaa walaalayaal isku haysataan oo idin ka dhaxeeya tii qabiil cayda iyo tii aan qabiil caayin تناق والبي أفكي ضيلا أسكال واحد كوها الله سلام مرق نقر بهذه سعرين ولا قرية اليوم من الأيام وحي عتري وحي عتشيك أما شهرها نقدان أما خيرها نقداني كفني ميسان نوال وصارية وانا كهرت على ولا وحسابية قف هبيرات بوينتي كعدي ما ياما بوينتي كوجدر كرا هرت متشلة تاكل بشهر سو هداد نقت هنا على نفط الله هداد أجت هنا على نفط الله قف كبيلة أنا يا ما أنت أجيبها طبيل بنكسيني هو متشرو qof oranaya maanta midgaan baa tobiil baan ku siinaya oo ma jiro adduunka qof walba tiisa cusleysay marka inaad hawlihiina raacataan oo dumar hooyooyina baad tihiin dumar waxay tihiin la qabo inaad ilaahay ka xishootaan oo qurbaad joogtaan inaad danihiina raacataan maxaa horta idin diiday oo ishaysadka iyo caayida iyo nacalada iyo waxa tufaysaanaad waxaan kugu wariday dadku idin leeyihiin fiifadaas maalmaha kamid ah idima wadayso dadka u dirbaantumaya ee leh ma garanaysaay heblaaya fiifana waxaan ka codsan lahaa inay daawanin oo iska bayna tiraan klibiyadooda waysan ahayn inaanay share-na u dhihin like-na u dhihin fiifana u qorin aanay oran heblaaya adaa kuwa tiyaada cayda kaga fiican yaada heblaaya cayda ka yaqaan waayo cay wax lagu faana ma cay wax la isku sibood gareeyo sacabka la isku garaacana walaalayaal ma dhaqankeeni iyo sharafteeni dumar hadaynu nahay raggeeni Soomaaliyeed baa inaga akhlaaq badan oo inaga sharaf badan kuwa xishoodka loo soo rogayna waa dumar xishoodka dumarnimo xaq u maray ma jiro ma arkaysid maanta gabar kaliya too xishoonaysa aan dumarka ku aflaga doonaynin oo dumarka ma garanaysaa ay ku xad gudbaynin haddana maanta intaad waxa la baruur kaliya taa baruur qurmisa war halka gabadha intay meel soo fariisataa ma jirkeeda qaawisa ama wax aan munaasib ahayn ku hadasha waxay ka go'an tahay gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan haddaynu maanta waxaan ku meel yar istaagno halka naag bayna la soo qaadayna la soo hordhigay misaal maxaad ku hadli kartaan soo tanba gabar Soomaaliyeed ma haydi kama dhalan marka walaalayaal inagu sharafteena iyo sumcadeena ilaashanayna idinkuna waad naga sii xaq jirtaan oo naaga waxa tihiin maanta jooga dhul gaalaad oo waxaan kugu qaar tahriib ku galay iyo qaar silic kala ku galayba waad leedihiin marka dhulkii gaalada awalba aydan lahayn oo hadana rafaad iyo silic ku gasheen markii ilaahay idin badbaadiyad gasheen oo sharciyo leedin siiyeen inaad ka shaqaysataan oo wax ka qabsataan baa la isku ogaa ma inay idinkiis xagataan inta social media isku soo farfastaan waxa doontaan ku hadashaan bad isugu abaal gudeen no wax idin ka dhaxayaan ma jiraan oo reason haddii dadku wax reason isku haystaan waxa la oran lahaa dadka maxaa ka dhaxeeya oo arintiina waa la fiirin lahaa laakiin waxa isku ma haysataanba heblaaya daldaloosha heblaaya midgaana heblaaya isqaawisay heblaaya gaal la tumata heblaaya war qof waliba noloshiisa wixii uu sameeynayo isaga horta xor ah farasti horta waa mid labaade qof ilaahiisa abuurtay subxaanahu wa ta'ala ka xishoon waayay umaleyn maayo aadama ka xishoonayo haddaad social media aad isku balansanaysan aad isku caayisaan ku raadinaysaan views iyo lacagna horta waa wax sumcadiina iyo sharaftiina ka go'an oo shilinkan maanta ka qaadato meeshaas horta wax maanta aakhiro ku raacayo dambiyadii ka meedhaya horta maaha gabar kasto isqaawinteedu waa u taala oo ilaahay jirkeedii qurux badnaayo siiyay uu yiri astur banaanka soo dhigtay cawradeedii horta waa wax meel ku taala dhita adiga ku taala
gabadha intay hadalaha kala soo fariisatay waxaan kugu wari aan munaasib hayn ku hadashayna iyadana sidoo kale waa u taala gabadha intay gaal soo kaxaysatay khamri cabtayna iyadana sidoo kale waa u taala qof kale wuxuu u galabsaday waa hor yaala sameeyna fahmin marka inaad haddaydan isku xishmeyneynin macnaha Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo dumarnimo haddaydan isku xishmeyneynin waxaad xishmeysaan bulshada idinka dhalatay aad hadhow habeen subscribe-ka noo saara noo share gareeya nadaawada daad haysaan xishmeeyo oo qadariya oo dadkaas wax fiican oo qurux badan oo ay ku farxaan u soo bandhiga waysan ahayn kamaradaha inta iska xirtaan ordo hadaa dad is hayo oo siyaasad isku haya aad tihiin de life isku raadsado oo wixii magaras ay ka dhaxay arintii xaliya laakiin tan meel soo fadhiistaan mid loo kaamiro guriga ka dhex furato inay tiraado maanta heblaayan caaya iyo hebel baan caaya inaad horta arrintaasi lama fiicna dumar Soomaaliyeed baa tihiin qabiilada doontaan kala ahaada meesha doontaan kala jooga idinka taasi idinta alla laakiin aniga Islaamnimo iyo Soomaalinimo ay keentay wax kale maanta afaariin soo galiyay ma jiraan marka waxaan idinku codsanayaa baasxaan dadka u sacabatumaya ee durbaanka u garaacaya ee la fiifa heblaayo inaad horta ka joojiyaan idinka dadka isku sii khooxinayo isku sii waalaya horta inaad idinku dadka sacabka u tumaysaan ka daayo wacdiya kalaamka wanaagsan aad tiraahdaa waa wax dhintmeel adiga ku taal qof walba wuxuu yiraahdaa waa wax isaga qofkana ma ha qaataa miyuusan qaadanin laakiin adigu kalaamka wanaagsan aad tiraahdaa waa wax Ilaahay xaqiisa ku yaalo weeyaan marka walaal hadaydan oranaynin Ilaahay ka cabsado xishooda waan arkay commentiga badan waa loogu qoray laakiin dumarkina qaar dayagu kaaba indha adag weeyaan marka waxaan idin leeyahay waxba ku heli maysaan isqaawinta waxaan sumcad darro ahayn wallahi oo billaah tala inaydan ku helin waxaan sumcad darro ahayn inaydan ku helin gabadha xamti galgacal waxaan leeyahay xamti galgacal leeyahay waxaan leeyahay walaalay macaanay qabiilada Soomaali horta adigu qabiil faraan horta kalbidina waan daawaday laakiin qabiil Soomaaliyeed oo ay lagu qabto oo adduun weynaha ka jira horta walaalay adiga keenay ma fahamtay in marka qabiilkaaga lagu mashquulo meesha way imanaysaa khasab waayo waxa la yidhi qofka bilaadanka markuu dhari baa leeyahay karka maxaa ka keenay kulay qofka marka bilaadanka qabiil ka hari weydo daadna kaaga waa lagu mashquulay qabiil waxba ku tari maayo ajinimana kuma anfacayso midgaanimana kuma anfacayso waxa ku anfacaya wixii sharaftaadii sumcadaadii gabarnimadaada ku anfacayso marka xamti galgacal waxaan ku leeyahay inta dilaha koorti ka cabsatay gabar marwaha la qabaa toor reer iyo caruur leh gurigaaga iyo caruurtaada ku dumarka afaarooda ka bax gabadha la leeyahay munana waxaan leeyahay walaalay gabadh aktarada baa tahay gabadh filmaan jishaa tahay gabadh ku dayasho mudan baaba tahay oo daawano filmaanteeda aan daawano isnaanada macnaha mar walba sida dadkaas wuxuu jilayaan horumarsan ee quruxda badan leh ku dayda atiin dad baad waxaad u tihiin indhaad u tihiin flower baa tihiin waa la idin fiirsanaya marka la yiraahdo ma gabadhii filimka ku jirtay baa maanta halkan ka caytameysa sharaftaadii sumcadaada hoos bay u dhacaysaa waxaan ku oran lahaa in adeer madaxaagana asturo walaaltinimo weeyaan hayga xumaanin madaxaaga qaawin aad mar walba qaawinaysa in adeer asturo jirkaaga quruxda badan leeyahay ku sii asturo aktarnimadaadii waxa jilanaysa hawlahaaga ku ekowna adeer caydan iska daa waxaan leeyahay gabadha kale la leeyahay laaya baraankina in adeer ama gaar xaq ku qabo ama muslim xaq ku qabo noloshaada adaa xor ah adiguna waxaan ku oran lahaa sidoo kale caydan iyo afaarahan bar soo gaabiya iyaduna gabadha kale la leeyahay khadro maamo weyn baa tahay caruurtaad leedahay waan hayaa oo waan koriyaa adaa jaamacad hooyo waa jaamacad weeyaan laga qalin jabiyo oo la barto weeyaan haddaad ilmahaaga xumaan u horseedan xumaantii uu kaa baranaya haddaad wanaag u horseedan wanaagii uu kaa baranaya ilmahaad leedahay markaa waan hayaa dee markuu ku arko adigoo balaayo samaynayo isqaawinayo habeen walba nin ku raran markuu ku arko dee waxaas unba inaad kaa baranaya waa haddaad run sheegaysa weeyaan caruur aad haysato waxaan ku oran lahaa intaad allahaaga koorti ka cabsato fiidiyooyadaada bal keliyaata waxaan kuu sheegayaa markaad asturan tahay aad masarka xidhan tahay dirac xiran tahay iyo markaad qaawin tahay shaadi suraalka xiran tahay waxaan ku ninka ku larantaad xaadaad hayso bal labada kaliya isku daawo intaad wax kale eegsaad u kala qurux badan taad u kala sumcad badan tahay intaad wax kale fiirin waxaan ku oran lahaa gabadhay adiguna inaad maamo weyn baa tahay waad soo tahriibtay waad soo jabtay waad soo qof waaya araga baa tahay san ku arkay hadalladaadan dhageystaa marka inaad dadkaagina way ku daawanayaan oo qof walba ma garanaysaa ehel buu ka dhashay dad buu ka dhashay marka hadalkayga anigoo soo gaabinay waxba ku sii tirax tagaynin anigu Ilaahay dartii baan idin soo dhex galay intiina soo qof midna ma aqaanin midna hiilo uma yahay alla igu ogyahay Soomaalinimo iyo Muslimnimo ay soo kicisay waxaan idin oran lahaa walaalayaal social media aad ku adeegsanaysaan iyo waxyaalaha aad ku hadlaysaan ee falxumada ee mataga ah inaad iska daayo qodin iyo xiridi akhriya adduunku waa kala badan yihiin waxaan leeyahay clipka sii share gareeya channelka subscribe saara insha Allah ta'ala soo booqda gaarsiiya walaalahayga aan clipka u duubay aad baan idin salaamayaa meel kasta joogtaan Soomaali Maxamed Willow bye